ay sodhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada qaybtii toddobaad ee seasonkii inoo socday muuqaalka lagsar waa canshuur keliya kugu leeyahay sidoo kale janaal ku soo bir haddii aad weli ku soo biirin waxaa saarana waddadii aad ku gaari lahiin 100 kun oo saaxiibo intaas haddii aad samaysay aad iyo u mahadsan tahay koobkaada shaaha soo qaado haddana aan gudagalna muuqaalkeena ugu dambeyntii baris isagu wuxuu helayaa doktorkii saakaytoole asra ee la soo wadaagaysay xogtiisa waxaa loo sheegayaa doktorkaasi halkii uu ka shaqaynayay in laga soo buriyey haddana waxaa lagu dhahayaa dalka daawooyin maanduuriye ayuu keenaa kuwaas ayuuna ka ganacsadaa ugu dambeyntiin baris isaga informationka wuxuu la wadaagayaa asra wuxuu ku dhahayaa ninkaas oo uu musuqmaasuq badan yahay shaqadiisana sidaas darteed ayaa looga soo buriyey haddana daawooyinka maanduuriyaha ayuu ka ganacsadaa ayuu ku dhahayaa weliba dalka uu soo geliyaa marka adiga waxaa laga yaabaa qasrigaas inaad joogto inay dhibaato ee kaaga imaada ee hadeerta inaad soo baxda ayaa loo baahan yahay laakiin asra ayaa go'aansanaysa ayada dhibaatooyinkan iyo howlahan ee bilowday inay dhammayso intaas wixii ka dambeeyna asra waa ay soo baxaysaa waxayna imaanaysaa xafiiska amiir xilligaasin dhammaan dadkii qasriga ku noolaayeen ayaga waa ay jiifeen xogta amiir ayayna baaritaan ku samaynaysaa hase haatee waxaan ogaanaynaa amiir isaga inuusan seexanin laakiin wax walba ee asra ay samaynaysa uu kaamirada uu kala socdo sidoo kalena asra ayada wax xog ah meesha waa ay ka weynaysaa markii ay soo bixisayna amiir ayaa ka hor imaanayo markaas ayuu ku dhahayaa adiga iyo leyla waxaa loo baahan yahay inaa isdiyaarisaan waa bixina saddexdeen ayuu ku dhahayaa guriga beerta ayaa aadaynaa halkaas ayaana waqti ku soo qaadanaynaa laakiin asra ayaa ku dhahayso ma wanaagsan xilligan leyla in la toosiyo maxaa yeelay waa xilli dambo laakiin amiir ayaa ku dhahayo wax la yaabla ayaa u heeya ee ayada ay jeceshahay ugu dambeyntiin waaga ayaa baryayo ayagana diyaar ayay ahayeen leyla ayaa aabbaheeda ku dhahaysa anigu waxaan rabaa inaa seexdo laakiin amiir ayaa ku dhahayo waxaa tagi doonaa guriga beerta adigana halkaas ayaa seexan doontaa weliba hurdo wanaagsan ayaa halkaasi ku seexan doontaa sidoo kale amiir wuxuu ku dhahayaa halkaasi hooyadaada ayaa kula kulmi doonta ugu dambeyntiina gaarigooda ay soo qaadanayaan oo waa ay ka soo tagayaan qasriga laakiin islamarkaas ay sii baxayeen gaariga amiir baariis ayaa arkayo intaas wixii ka dambeeyana baariis isaga wuxuu la kulmayaa amiir hooyadiisa hanzaad laakiin waxaa loo sheegayaa amiir isaga asra iyo gabadheeda inuu u kaxeeyey guriga beerta islamarkaasi amiir isaga wuxuu la kulmayaa saalim waxayna go'aansanayaan labadoodaba inay dabagal ay ku sameeyaan weliba ay raadiyaan guriga beerta halkii uu ku yaalo maxaa yeelay waxay ka cabsanayeen amiir isaga inuu dhibaateeyo asra ugu dambeyntiina baariis waxaa soo gaarayso fariin ka socota asra fariintaasina waxaa loogu sheegaya ayaga xilligaasi meesha ay ku sugan yihiin islamarkiiba waa ay soo baxayaan oo waxay soo aadayaan halkii ay u soo sheegtay asra sidoo kale amiir iyo familkiisa ugu dambeyntii guriga beerta ay imaanayaan islamarkaasina leyla aabbaheeda amiir ay weydiinaysaa hooyadaada haddii ay imaanayso iyo haddii kale asagana asra ayuu fiirinaya kadibna wuxuu ku dhahayaa hooyadaada waa ay imaanaysaa ugu dambeyntiina habeen ayaa la gaarayaa baariis iyo saalimna waxay arkayaan kaaliyaha amiir kaasoo u sii socdo halkii uu amiir uu joogay islamarkiiba ayagoo aanan ka lablabeenin waa ay soo dabaraacayaan sidoo kale amiir isaga wuxuu bilaabayaa inuu diyaariyo cuntooyinkii ay cun lahayeen isaga iyo asrana amiir ay la wadaagaysaa leyla ayada inay iska seexatay laakiin midaasi wax weyn kama soo qaadayo sidoo kale cuntooyinkuu amiir u diyaariyey waxaa ka mid ahay hilibka shimbirta amiir isagana wuxuu ogaa hilibka shimbirta asra inay nacban tahay marka wuxuu u diyaariyey wuxuu rabay asraadan hadda wejiga iska bedeshay inuu ogaado weli hilibka shimbirta inay nacbanta iyo inay cunto asrana si uusan u fahmin markii hore ayada waa ay qaadanaysaa oo afka ayay gashanaysaa laakiin markii lamaanta waa ay awoodi weynaysaa oo lablaba ayaa qabanayso dhankaasi oo musqusha ayayna aadaysaa amiirna isaga marba marka sii dambeyso shakigiisa yaqiin ayuu isku sii bedelayay oo hadeertaan 100% wuxuu xaqiijiyey ayada inay tahay asra dhinaca kale saalim iyo baariis waxay imaanayaan halkii uu siciid u imaaday laakiin waxaa dhacayso tiimka amiir inay gacanta ay ku dhigaan midaanina shirqool ayay ahayd ugu dambeyntiina asra suuliga waa ay ka soo baxaysaa laakiin waa ay naxaysaa kadib meesh markii ay ku aragto mare ee ayada ee lahayd maradaasina ayadu waxay haysatay kahor intaysan qasriga ee ka soo bixin sidoo kale waxay haysatay markii ay qaliinka ay galaysay haddana waxay ogeed maradan ayadoo taalo guriga baariis laakiin ugu dambeyntii asra ayadu waxay xaqiiqsanaysaa amiir inuu wax walba u ogaaday islamarkaasina ayadu waxay isku dayaysaa inay ka baxsato meeshaasi laakiin amiir ayaa ku dhahayo adiga ugu dambeyntii waa la yaabtay midan sooma ahan aad ayuuna ugu soo dhawaanaya oo wuxuu ugu yeerayaa magaceeda asra ismaanan lehen ayuu ku dhahayaa dhowr bilood asra ayaa hal meel ku wada noolaan doontaan weliba adigoo aanan ogeyn aniga waxaa isku day ayuu ku dhahayaa inaan kaa farxiyo weliba midaas waxaa u sameeyey waxaanan weligeyga aanan samayn lahayn waxaan ogaaday ayuu ku dhahayaa hilibka shimbirta inuu yahay hilibka adduunka loogu jecel yahay hadeertaan ugu dambeyntiin aniga waxaa bartay sida loo kariyo hilibka shimbirta si aan adiga ku farxad geliyo oo keliya laakiin habeenkii ugu horreysay aan kuga casuumo waxaa ogaaday ayuu ku dhahayaa adiga inaadan ka helin hilibka shimbirta islamarkaasi asra hadalladiis waa ay iska natiraysaa waxayna weydiinaysaa inay baxi karto iyo in kale amiir isagana xilligaas wuxuu dareemayaa asra dhab ahaantii zaid inay aaga cabsanayso macquul maahan ayuu ku dhahayaa adigu ay dhaawacday haddana waxaa rabtaa inaa iska baxdo wuxuuna ku dhahayaa dhab ahaantii adigu waa isbedeshay xitaa codkaadu waa uu isbedelay asrana ayada hadeertan waxay darantay amiir inay serious ee ka tahay calaashaan uu xanaaqay ugu dambeyntiina wuxuu ku xil wareejinayaa taleefankeeda wuxuuna ku dhahayaa ani weli waxaa heeya fiidiyoogii adiga habeenkaasi ay iga duubtay ulijeedkaadana wuxuu ahaa ayuu ku dhahayaa inaa wax walba igu samayso aniga laakiin waa ay ku suurageli waasay islamarkaasina asra ayada waxay bilaabaysaa inay qiil ay samaysato
karto waxayna ku dhahaysaa wax walba aniga gabadheeda darteeda ayaa u sameeyey laakiin amiir ayaa ku dhahayo gabadhaada sidee kuu fahmi doontaa maadaama adiga codkaada iyo wejigaaga aa bedeshay waxay noqotaa ugu dambeyntii wuxuu ku dhahayaa adiga iyo baariis xiriir jecel miyaa idinka dhexeeyo aniga wax walba oga ayuu ku dhahayaa weli waxaa ogahay baariis inuu yahay dhakhtarkii adiga qaliinkuugu sameeyey sidoo kale waxaa sii ogahay muddo bilooyin inaa gurigiisa ah ku noolayd laakiin asra ayaa ku dhawaaqayso ayada inaysan jecleen baariis wejigana waxaa iskaaga bedel ayay ku dhahaysaa keliya nafteeda ayaa ilaalinayay maxaa yeelay aniga dad ayaa isku dayayeen inay nafta ii dhaafiyaan amiir ayaana tusayo faraantigooda guurka anigoo ku qabaya muddo bilooyin guri kala seexanaysa ayuu ku dhahayaa gabadhaada iyo anigana waa ku baanay xilligaasan meel walba ayaa kaa raadinaynay anigana wax walba waa ilaabi karaa ayuu ku dhahayaa laakiin gabadhaada taasoo adiga ku baaneed wax walba ma ilaabi karto aad ayuu noo xanaaqayaa oo waxuu ku dhahayaa aniga marow inaa wejigaaga asii arko meeshan iskaaga tag ayuu ku dhahayaa kahor intaysan gacanteeda ay ku gaarin intaas wixii ka dambeeyey asra gabadheeda oo jiifta ayay soo maxsalaameynaysaa kahor intaysan bixin amiir ayaa ku dhahayo daa'uud ninkii lagu magacaabay kaasoo adiga ku daba taagnaa ugu dambeyntii waa la dilay booliiskan markii baaritaan ay ku sameeyeen ayuu ku dhahayaa waxay meesha ka heleen caddeemo muujinaya walaalkeeda saalim inuu dilay laakiin ma aqaan ayuu ku dhahayaa saalim sababta uu daa'uud u dilay asra ayadan waxay dareemaysaa midani inuu ayada uu ku rakaateenayo amiir ayaana ku dhahayo wax walba gacantaada ayay ku jiraan fiidiyoga aniga igeys ayuu ku dhahayaa haddii aad booliiska la wadaagto anigana walaalkaada ayaa booliiska u geen doona labadeynana sidaas ayaa gudka ugu dhici doona ugu dambeyntiina asra ayada meesha waa ay kasoo tagaysaa sidoo kale baariis ayaa arkayna isagana xilligaasi keligiis ayaa meel ku xirnaay sidoo kalena saalim waa ay garaacayaan intaas wixii ka dambeeyena wadada ayay iskaaga tuurayaan ugu dambeyntiina asra ayada waxay dib ugu salaabanaysaa guriga baariisna halkaas waa ay ka weynaysaa ayada kadib markii ay wacdana waxay ogaanaysaa taleefankiis inuu dansan yahay sidoo kale midka walaalkeeda saalim ayay soo wacaysaa oo waxay ogaanaysaa isaga xitaa taleefankiis inuu dansan yahay asraan arrinkaas dhab ahaantii aad ayay aaga welwelaysaa ugu dambeyntiina maalinka iyagu waxay tagaysaa guriga hooyadeeda waxay weydiinaysaa arrimo ku saabsan saalim laakiin maamada waxay la wadaagaysaa ayada inaysan meel ay ku sheegin wiilkeeda sidoo kalena waxaan ogaanaynaa maamada ayada inaysan weli ay ogaanin asra inay gabadheeda ee tahay dhinaca kale amiir ugu dambeyntii wuxuu imaanayaa halkii uu baariis uu ku xirnaay intaas wixii ka dambeeyna wuxuu bilaabayaa inuu ka furfuro xergaha laakiin baariis ayaa ku qalinaya oo wuxuu weydiinayaa asra meesha uu geeyey qayladaasina amiir ayaa ka xanaaqayo wuxuuna ku dhahayaa aniga runtu waxay tahay saaxiibkaad arkaan ayaa ila wadaagay waana adiga ayuu ku dhahayaa asra qofkii qaliinka ku sameeyey weli waxaa la socda ayay ku dhahaysaa muddo bilooyin inay gurigaaga ay ku noolayd intaas wixii ka dambeeyna amiir gacan ayuu u qaadayaa baariis laakiin baariis ayaa bilaabayo asagana gacanqaadkaasi inuu ka falceliyo meeshana waxaa ka bilaabanayo dagaal qaraaran laakiin baariis ayaa looga adkaanaya maadaama uu asaga uu jilicsanaay calaashaan maantao dhan la garaacay ayaa ka wadaa wuxuuna ku dhahayaa qoftaasi anigu waa xaaskayga gabadheeda hooyadeeda adigana waxa uu muddo ayuu ku dhahayaa xadkaaga inaad dhaafayso intaas wixii ka dambeeyna amiir dib ayuu xasuus u galayaa waxaa jirtay amiir gabar ay isjeclaayeen gabadhaasina maalin walba ayada waxay amiir ay ka dalban jirtay inuu bannaanka uu soo bixiyo calaashaan uu ka dhigo mid la og yahay xiriirkooda laakiin midaasi amiir ayaa ka diidi jiray maxaa yeelay asaga xilligaasi asra ayuu qabay waxaana jirtay amiir xaflad uu u socday laakiin waa uu ka diidayaa shefel inay u raacdo maxaa yeelay asra ayaa halkaas imaanaysa ayuu ku dhahayaa adigan looma baahna inay ku aragto laakiin shefel ayadu waxay u sheegaysaa halkaas inuu imaanayo wiil ayada walaalkeeda kaasuu baris lagu magacaabo halkaas ayuunu amiir ku ogaaday shefel iyo baris labadood inay walaale ay yihiin ugu dambeyntii amiir asiga gurigiisa ayuu kusoo laabanayaa sidoo kale asra ayaa imaanaysa miiska quraacda subaxdaasina amiir xoogaa wejigiisa dhaabacdhaabac ayaa ku yaalay familkiisana waxay isweydiinayaan meesha uu dhaabacan uu kasoo gaaray intaas wixii ka dambeeyna asra ayada amiir ayay ku dhahaysaa waxaa rabaa inaan kula hadlo si gaar ayay usoo wadabaxayaan halkaas ayayna ka bilaabayaan inay ku wada hadlaan waxay ku dhahaysaa aniga waxaa ka codsanaya inaa iska ilaawdo wax walboo dhacay sidoo kalena gabadheeda iyo adiga waa idin jeclahay waxaan rabaa inaa idinla noolaado laakiin amiir ayaa ku dhahayo aniga ma laga yaabo hadeertaan si dhaqsil inaa kugu aamino inaa ku aamina waqti ayay qaadanaysa ayuu ku dhahayaa waxay ahaataba asra walaalkeeda saalim ayay waxay ka weydiinaysaa laakiin amiir wuxuu ku dhahayaa isaga waa uu soo laaban doonaa mar dhow sidoo kalena amiir miyaa ka walwalsanta ayuu ku dhahayaa isigana laakiin asra ayaa ku dhahayso ilaa iyo hadda isagana ma aqaana meel uu ku maqan yahay labadoodan taleefanadooda waa wacay laakiin waa uu dansan yahay dhinaca kale mildi iyo saciid mar kale ayay kulmayaan mildi ayaana saciid ku dhahayso adiga maxay tahay sababtaa midan ay ku samaysay laakiin saciid wuxuu dareensiinayaa asiga inuu ka xanaaqsan yahay waxyaabaha ay amiir ay ku sameeyeen wuxuuna ku dhahayaa aniga waxaa ahaa qofkii amiir wax walba u gudbiyey maxaa yeelay markaa arkay adiga iyo sahraan oo lacagta qaadanayo waa aamini waayey midaasi adigana mar hore ayaa la socota ayuu ku dhahayaa dhab ahaantii xiriirkeena inuusan ahayn mid sii soconayo laakiin mildi ayaa ku dhahayso anigu waa ku jeclahay isagana wuxuu ku dhahayaa labadeena waxaa wanaagsan inaanan been isku sheegin marka iga fogow ayuu ku dhahayaa sidoo kale sahraan wuxuu soo wacayaa hanzaad wuxuuna ka dalbanayaa inay kulmaan dhinaca kale salim ugudabeeti wuxuu dib ugu soo laabanayaa gurigiisa xilligaasina hooyadiis waxuu uma sheegayo oo waa uu daalnay qolkiis ayuu iska tagayaa si uu u nasto ugudabeetiina zahraan hanzaad ayuu la kulmayaa zahraan halkaasi waxaa lagu tusayaa fayla lagu cadeynayo asiga deymankii lagu lahay in laga bixiyey intaas wixii ka dambeeyey asiga indhihiisa
ilmo ayay soo buux dhaafinayaan. hooyadiisa Hanzad ayuuna ka dalbanaya qasriga in dib loogu soo celiyo. dhinaca kale Salim walaashiisa Asra ayaa soo waceyso, wax walba ayuuna la wadaagaya oo wuxuu ku dhahayaa Amiir ayaa raggiisa nagu soo dalbaday, anigana siday ii tumayay markii iga daalan ayay wadada igu soo tuureen ayuu ku dhahayaa. isla markaasi Asra ayadu waa xanaaqaysaa, waxayna dejinaysaa qorshe ay aga argoosan doonaan. sidoo kale Baris wuxuu ku guuleysanayaa inuu iska furo xergey asiga ku xirnaay, ninkii ilaalina ayuuna la dagaalamaya. ugu dambeyntiina waxa uu suuragalayso inuu ka guuleysto. intaas wixii ka dambeeyana meesha waa uu ka soo tagaya, calashaan waa uu ka soo baxsanaya. Asra ayada markale waxay dib ugu soo laabanaysaa guriga Baris. dhab ahaantiina murugo fara badan ayaa ka muuqatay oo waxaa dareemayna in uu xiistay, waxayna dib u soo xasuusanaysaa daqiiqadihii quruxda badnaa ee labadooda ay wada qaateen. muuqaalka ilaa iyo halkan haddii aad daawanayso like ina saarta ayaa rajaynaya. arrimo ayaa jiraan oo welwel igu hayaan, marka waxaa rabaa inay ii soo duceysaan si uu arrimankaas uu ilaahay oo igu fududeeyo. aad ayaan u mahadsantihiin dhammaantiina. ugu dambeyntii Asra ayadu waxay soo xirxiranaysaa dharkii ka yaalay guriga Baris, maadaama hadda iyo wixii ka dambeeya ayada ay qasriga ay ku noolaan doonto. ugu dambeyntiina ayadoo boorsadeeda wadato ayay qasriga dib ugu soo laabanaysaa. Amiir ayaana soo kaxinaya oo xafiiskiisa ayuu keenaya. wuxuu u sheegayaa inay waqti qaadan doonto si uu ugu kalsoonaado. wuxuuna ku dhahayaa aniga waa ku jeclahay, weliba nafteeda ayaa kaa jeclahay, laakiin waxaa kaa codsanaya marna inaadan khiyaano ay igu samaynin ama been aadan ii sheegin. sidoo kale wuxuu ku dhahayaa mehri qofta lagu magacaabay adiga ayay kaa masiiraysaa. laakiin Asra ayaa ku dhahayso taasi waa ogaay waxaan oo dhan ay u samaynayso adiga ayay karaash kuugu tahay, calashaan ay ku jeceshahay. ugu dambeyntiina Asra mehri ayay u imaanaysaa. waxay ku dhahaysaa sida ila tahay adigu uma baahnid inaa wax lagu sheego oo wax walba la socotaa. wixii aata waxa kaaga digaya ayay ku dhahaysaa adiga inaa u dhawaato Amiir, maxaa yeelay labadiin iskuma qalataan sababtoo adiga maskaxda ayaa ka jiran tahay. habeenkiina cashada ayaa la iskugu imaanaya. dadka dhammaan waa ay wada cunteynayeen, laakiin Nahri ayada dhab ahaantii aad ayay u murugaysanayd, maxaa yeelay Baris ayaa ka maqnay oo maalmaha oo dhan taleefankiisa waa uu dansan yahay, ayadan ma aysan arkin. Amiirna isagu wuxuu la socday walaashiisa Nahir si dhab ah inay u jeceshahay Baris. cuntadooda markay u dhamaatana Amiir Asra ayaa ka codsanaya Layla inay seexiso. markay Layla seexisana wuxuu ku dhahayaa qolkayga igu siiso ku xarba inaan kula hadlo. intaas kadibna Asra ayada jikada ay waxay aga soo baahanaysaa ay soo galaysaa, laakiin dhab ahaantii si lan filaan indhaheeda waxay qabanayaan Baris oo meel ku dhuumanayo. seasonkeena qaybtiisa toddobaadna halkan ayuu inoogu egyahay. saaxiibayaal waxaa rabaa inay ii soo duceysaan, arrin ayaa ii kala xayiran, marka waxaa rabaa inay ii fududaato. intaan ka kulmaynana muuqaalka xiga nabada.